dhimbilo kulul ayaa afka Axmed Madoobe ka soo baxay waxa uu kala qaybiyay laba dhinac marna ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayuu horta bahal karbaasha oo u eg jawaab celin hadalkii hadda ka hor Xamse ka soo baxay oo kale bash uu ku siiyay Axmed Madoobe ma la gabanaayo hadalka shalay annaga ku siinuu yiri xildhibaan Xamsow xildhibaan annaga ku siinay ra'iisul wasaarena ka dhignay dad awood marka laga hadlayo shakhsiyeed iyo sidoo kale taageero caalam ba haystay ayaa annaga farta inta noogu yeereen aan niri Soomaalinimada idinka weyn naga taga adigu waxa ka goysay mala Jubbaland u jiri ee dadkaaga iyo dalkaaga u tur Xamse oo kugu dhacday waxaa nasiib darro wiilka shalay aan xildhibaanka siinay ee ra'iisul wasaaraha noqday maanta inuu noqdo cid loo adeegsanayo Jubbaland burburinteeda waa nasiib darro waxaan ku leeyahay ra'iisul wasaare Xamse waxaan waa taariikh bari bay qodi doontaa deegaan baad ka soo jeedaa dad baad matalaysaa inaad dagaal u xaydxaydato oo aad tiraahdo Jubbaland ma la dagaalama burburinaya shalayna mayna dhicin maantana ma dhacayso kuwa adiga kaa waaweyn baa isku dayay kuwa kaa awood badan baa isku dayay dowladay ahaayeen kuwii fartii igu yeedhayaalaha sidaa iyo sidaas laakiin waxaan ku faanayaa inaan weli Soomaali ahay intaas miyaa maya Axmed Madoobe karbaashki waa sii watay Xasan Sheekh Maxamuud uu qabsaday wuxuu yiri I am not Kenyan horta af Ingiriis ku turtay maanta aniga Kenya ma ihi Soomaaliya uu yiri waxa Soomaalinimo aan ku aqbali waay shisheeye kama aqbalay George ayuu yiri gadaal ka wareegadka iyo kaalma karaadinta Etoobiyaanka iyo sidoo kale Kenyaanka dhul Soomaaliyeed ayaa madaxweyne ka ahay ayuu yiri mana dhacayso Xasan dhigta loogu dhibciyay mana dhacayso yiri inaan inta ayaga wax ka maqlo ka diido Soomaalinimada miiska Soomaalinimadana deeqayo yiri dib ha u celinin ayuu yiri Xasanow dowladnimada hore in u socotay u baahanta wallahi ninkan waa hadal adag yahay fiirhe I'm not a Kenyan I'm Somali Somali baana waxa annaga Soomaalidii aan ku wada hadli weyno la Ethiopiana noqonin wala Kenya noqonin wala cid kale aan noqonin Somali baana Soomaaliya iskale waxay maanta maraysaa waxaan oranayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud taariikhda dib u celin dadka reer Jubbaland way ka bogsadeen shalay waxay soo mareen wada hadal baan diyaaruna Axmed Madoobe karbaashkiisa hadal adeegiisa asaas dareen aad u kulliyo yiri hadalkayga laakiin haddana uu ku celi Soomaalinimada igama saarayso jiri waxa uu tusaaleeyay dawladii tan ka horeysay farmaajo dagaalkii ay wada galeen ee ku aadanaa Jubbaland in la burburiyo sidoo hadalku dhigay hadda oo ragaas marka xilligan jooga ay ahaayeen mucaarad oo hadda u soo qalab xaatay ayagana inay sidoo kale Jubbaland dhulka la galaan sidoo asaga hadalku dhigaayo war dhinac kasta ayuu tusaaleeyay Axmed Maxamed Islaam Axmedow didiyihiin waxa marka uu dambeyn u yiri aniga Jubbaland ka ah madaxweyne cid iiga awood badan dhinac ciidanna ma laha waxa aan ugu aqoon badanahay ciidanka waa yiri ee miiska wada hadalka Soomaalinimo annagoo ka duuleena aan ku wada hadalno waxba yaan lagu soo gabanno yiri ajnabi iyo dawlado kala shisheey dibna yaan loogu celino yiri Jubbaland iyo deegaanadeeda dagaal maska madaxiisa ayaa yaala ayuu yiri waa shabaabka ula jeeday oo la rabaa in wax laga qabto ma aha umad dhisan oo ismaamushay in lagu mashquulo ayuu yiri waxaan ku faanayaa inaan weli Soomaali ahay mana dhacayso qof Soomaaliya intii loo yeero inay cid kale inta u hajabto ay u dhigtay garayso ma dhacayso dib ha loogu noqdo wada hadal baan diyaar u nahay aan wada xaajoono aan isu nimaano laakiin ha laga daayo warwareega Madoobe ayaa ku guuleystay maanta madaxtinimada Jubbaland sidaas ayuuna hadaladan kulul u jeediyay markii la siiyay mikrofoonka hadal jeedinta waxa uu Jubbaland ka sii arimin doonaa muddo 5 sano oo hadda kadib soo socdo dawladda Soomaaliya oo horey wax looga weydiiyay Axmed Madoobe waxa uu sheegay in aqoonsi uusan ka rabin waxaan sugnaa dhinaca dawladda iyo warka ka soo baxay. Assalaamu calaykum.